فرتناد عشان كده ما أنت وحاو كسابسين ياهي runtii xubin aad u cusub waxa uu ku saabsan yahay dad la dhaqanka waxa la yiraahdaa ardayga marka wax la barayo waxa ugu muhiimsan saddex shay la baro koow ardayga waa in la siiyaa macluumaad cusub aqoon cusub ardayga waa in la siiyaa laba waxa la yiraahdaa ardayga skills xirfado cusub waa in la baraa saddex waxa la yiraahdaa ardayga waa in qiyam kay akhlaaqda laga dhisaa maadaama aad aynu uga soo hadalay runtii ardayga macluumaad cusub la siinayo aynu aad uga soo hadalnay xirfadaha maamulka aynu aad uga soo hadalnay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno sida qofka loo dhisayo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa daawada qofku inuu yeesho dad la dhaqan waa sifo aad u muhiim ah waa sifo cid kasta looga baahan yahay bal waxa la yiraahdaa hogaamiyaha marka laga sheekeynayo sifada dad la dhaqanku iyo in qofku dadka uu si fiican u la dhaqmi kara waxa la yiraahdaa waa sifooyinka ugu muhiimsan ee hogaamiyuhu leeyahay bal waxa la yiraahdaa waa sifada ay dadku ku jeclaadaan hogaamiyaha sidoo kale daawada dad la dhaqanku waa sifo qof kasta u baahan yahay waxa u baahan macalinku ardayga markuu wax dhigayo haduu dad la dhaqan leeyahay oo runtii si fiican u ardayda uu la dhaqmo isbedel buu ku sameyn karaa sidoo kale ninkii naagta isqaba haday si fiican u wada dhaqmaan iyadana isbedel baa runtii guriga dhexdiisa imanaya intaas oo kaliya ma aha waalidku haduu caruurtiisa si fiican u la dhaqmo iyadana waxay imanaysaa run ahaantii inay si fiican isula jaan qaadaan intaas oo kaliya ma aha bal saaxiibku haduu saaxiibkiisa si wanaagsan u la dhaqmo oo akhlaaq ku dheehan tahay waxay imanayaan runtii inay si fiican u wada muxahaye socdaan wax la yiraahdo marka xadaarada laga sheekeynayo xadaarada waxa la helaa saddex shay marka la helo baxnimadu marka waxay timaadaa saddex shay marka la helo marka hore waa in aqoon iyo cilmi la helaa cilmi waa in la helaa lambar 2 waa in amal la helaa shaqo waa in la helaayo dadku waa in shaqeeyaan oo waxay qabtaan oo na fadhiisan lambar 3 waxa la yiraahdaa akhlaaqna waa in la helaa hadii aan akhlaaq jirin xadaaradii hobro ma imanaya daawada marka in akhlaaqda la iska dhiso bal maanta waxa runtii aad u muhiim ah in sheegno marka wax barashadeena laga sheekeynayo dalkeena wax badan baa la qabtay waliba ardayga xagga macluumaadka wax badan baa laga dhisay xirfadana waa la baray laakiin qodobka runtii aadka u muhiimka ah ee moodo wax badan runtii in la iska weydiinayo marka wax barashadeena laga sheekeynayo waa dhinaca runtii dad la dhaqanka iyo akhlaaqda weeyaan nin macallin ayaa waxa uu soo galay fasalkii uu wax ka dhigay fasalkii marka uu soo galay ayuu ardaydii markuu soo galay ardaydii oo markaas fadhiistay buu soo galay ardaydii kamid ah oo dhoola cadeynayo arkayo markaa xoogaa intuu hadalkii dhameeyay markaa si dhoola cadeynaya ardaygiiba ku xanaaqay ardaygiiba ku yiri arday fiican ma tihid maxaad la qoslaysaa maxaad meeshan u timi ma inaad iska joogto iska qosashaad meeshan u timi wadankaagiibaad ka timi haddana waad iska fadhidaa waad iska qoslaysaa arday xun baa tahay ardaygiiba ku yiri iga baxada ardaygiiba baxay ardayga markuu baxay ayuu macallinku wuxuu soo saaray questionnaire buu soo saaray form ay ardaydu buuxinayaan ayuu intii ardayda soo hadhay u soo saaray wixii formkan baad buuxinaysaan formkan waxaad ku qoraysaan macallinkan idin dhigay oo aniga ahi sidee baad u aragtaan dhaqankiisa ma ogol yahay inuu ardayda runtii reegooda dhageysto ma laga yaabo inaad fasalka soo socotana aad jeclaysanaysaan in isaga laftiisa la idinku soo qoro ila 5 su'aalood ba ardaydii uu weydiiyay uu leeyahay qof kasta foomka hanu dhiibay ayuu runtii ku qiimeynaya oo wuxuu siiyay muxaahay ikhtiyaarad doorashooyin buu siiyay wuxuu yiri waxaad runtii muxaahay sheegaysaa hadii macallinka aad u jecesho waxa leeyahay macallinkaas waa macallin aad u fiican haduu liito waxa leeyahay waa macallin liita haduu dhexdhexaadii waa dhexdhexaad baad leedahay foomkii buu dhiibay foomkii markuu u dhiibay ardaydii baa markaa foomkii buuxiyay iyagoo qiimeynaya macallinkoodii dhinaca dhaqankana ka qiimeynaya iyo akhlaaqda markii foomkii buuxiyeen ayuu macallinku yiri ardaygii naga baxay mee isag ardaygiiba u yeedhay ardaygiiba ku yiri raali ahaw arday wanaagsan baad aniga maanta iska kacsanaaye laakiin adigu qarad baad sameeyeen nin dadaalayaa tahay wadankaagii baad ka timi uga timi inaad wax barato marka aniga qaradka sameeyay raali iska ahaw ardaydiina oo dhan waan raali gelinaya dad fiican baad tihiin hadal wanaagsan buu ardaydii ku yiri inta ka bacdi buu ardaydii ku yiri arday maadaama ardaygan inaga baxay markay foomka buuxinaynay mar labaad baan foomkii idin qaybinayaaye dib u buuxiya mar dambu foomkii haddana mar labaad ku soo celiyay
oo ay ku qoreen su'aalaha ahaa macallinkaaga qiimaha dhinaca dhaqanka iyo akhlaaqda ardaydiiba foomkii buuxiyay oo ardaygu saarana uu ku jiray kadib foomkii markay dhameeyeen ayuu wuxuu soo qaaday foomkii markii hore ay buuxiyeen iyo foomkii markii dambe ay buuxiyeen oo isbarbar dhigay maxaa soo baxay waxa soo baxay foomkii markii hore ardaydu ay buuxiyeen inay macallinka yiraahdeen macallin xun baa tahay hanagu soo noqonin kuma rabno cidna wax ray kale ma ogolid meel waxay ka istaageen meel adag bay ka istaageen laakiin foomkii mar labaadkii ay buuxiyeen markuu ardayga uu raali galiyay si kale uu isagu ahaa oo maxay ku qoreen macallin fiican baad waanu ku jecelahay mar labaad nagu soo noqo waanu ku xiisaynayna maxaa meesha ka soo baxay daawad waxa ka soo baxay qaabku macallinku ardayga oo la dhaqmay waxay wax ka bedeshay fikirka ardayga markuu ardaydu macallinku si adag u dhaqmay oo runtii kakan oo qalafsan ardaydu way naceen waa kuwa jawaabaha adag ka bixiyay markii dambe uu istabciyay ardayda uu raali galiyay ardayga uu raali galiyayna foomkii hay buuxiyeen maxay ku qoreen macallin fiican baad marka waxaan u la jeednaa qisadan haduu dhaqankaagu isbedelo qofka kale fikradu ka haysa uu isbedelaya markasta qofka si wanaagsan ula dhaqanto oo akhlaaq ku dhisan waa markasta qofkaas ku jeclaanayo markasta si qaldan runtii aad ula dhaqanto iyo si kakan iyo si runtii aan fiicnayna waa markasta qofkaas ku nacayo dawada hadaba hadii aad rabto inaad akhlaaqda hagaajiso inaad dadka aad soo jiidato inaad saaxiibo badan samaysato waliba saaxiibo xaqiiqo ah oo runtii been ahayn inay dadku ku jeclaadaan inaad akhlaaq yeelato hadii aad rabto waa inaad sifaadkan yeelataa sifada koowaad ee lagaga baahan yahay waxa weeyaan marka ugu horeysa waa qodobkeena koowaad waa inaad niyada hagaajisaa akhlaaqda wanaagsan ee aad rabto iyo dad la dhaqanka aad rabto inaad samayso waa maxay hadafka aad ka leedahay waa inaad niyadaada hagaajisayo aad ka dhigtaa qaabkan aad rabto dadka inaad ula dhaqanto ee wanaagsan waxaad ku raadinaysaa ajar baad ku raadinaysaa ilaa kiisa kuma raadinaysid maslaxad kuma raadinaysid waxa in badan dhacda qof waxaad arkaysaa aad wax ka rabto ama mas'uul ah markaas maxaa imanaya inaad siiro aad u macaan ula dhaqanto inaad soo dhaweyso inaad si fiican u salaanto laakiin hadafkaagu muxuu yahay hadafkaagu waxa weeye ninkan maslaxada aad leedahay ku dhameey haday daawada arintaasi jirto arintaasi sax ma aha waxa la rabaa akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu inaan isbedelin waxa la rabaa akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga wanaagsan marka aad ku dhaqmayso niyadaadu waa inay noqotaa inaad ilaahay ajir kaga raadinayso laakiin aanay ahayn qofkan maslaxad kaga raadi qofkan lacag kaga raadi qofkan mansab kaga raadi qofkan magac kaga raadi hadii kala maxay imanaya in dhaqankaagu isbedelo oo markaad qof aad u baahan tahay aad aragtana dhaqankaagu wanaagsanaado oo soo dhaweyso oo si fiican aad ula hadasho markaad aragto qof aanad u baahnayna oo isagu ku baahana si kala aad ula dhaqanto si aan fiicnayn aad ula dhaqanto tala diidayna waa taa marka daawada qodobkan kuwaad muxuu tilmaamayaa waxa uu ku leeyahay hadii aad rabto runtii inaad akhlaaq wanaagsan yeelato hadii aad rabto dadku inay ku jeclaadaan oo dad la dhaqan aad yeelato waa inaad noqotaa man of principle waa inaad noqotaa oo macnaheedu waa maxay waxa weeyaan waa inaad mabaadi aamintaa waa in akhlaaqda ku noqotaa iyo dhaqanka wanaagsan mabaadi aan isbeddeleen oo dadka isla beddeleen waa in joogto ku noqdaan oo qofka maslaxada ka leedahay oo kaliya si fiican hawla dhaqmine qof kasta si fiican ula dhaqan kaasi waa qodobkeena koowaad sifada labaad ama qodobka labaad waxa weeyaan ee keensanaya runtii inaad runtii dadku ay ku jeclaadaan dadka inaad si fiican ula dhaqanto akhlaaqdaadu inay wanaagsanaato waxa weeyaan waa inaad dadka runtii aad ula dhaqantaa inay yihiin dad muhiim ah inay yihiin waa inaad ihtimaam gaar ah siisaa dadka marka la dhaqmayso qofka marka aad la dhaqmayso waa inaad runtii si gaar ah had u siisaa ihtimaam iyo muhiimad waa inaad u siisaa daawada waxaad ka soo qaadaa majlis baad meel la fadhiya soo gashay meeshii la fadhiyo marka aad soo gashay ayaa dadkii aad salaantay nin kamid ah dadka kamid salaanta uu ka qaado isagoo sii jeeda oo telefoonkiisa ku hadlaya ayuu salaanta ka qaado ku salaamay oo gacanta uu ka salaamay nin kalena waxa laga yaabaa inuu gacanta ka salaamay laakiin se isagoo runtii aan si qaboob ku salaamay oo xataa wajigaaga muu soo eegin manu qoslin marka uu ku salaamay mid kale oo dadkii kamid ah ayaa markuu ku arkay inaad soo gashay ayuu istaagay
isagoo dhoola cadeynaya ayuu dhinacaaga eegay kadib uu ku soo dhaweeyay kadib gacanta ku qaaday isagoo qoslaya oo runtii ku faraxsan markaas uu fadhiistay maxaa dareemaysaa saddexdan sida ku salaameen keeba qalbigaaga la jira keeba qalbigaaga markiiba soo jiidanaya waxa Allah baa qalbigaaga inuu soo jiidanayo qofkii ku kacay ee soo istaagay ee gacanta ku qaaday isagoo dhoola cadeynaya oo muxuu ahaay ku salaamaya taas maxay tilmaamaysaa yaani qofkaasi wuxuu ku siiyay muhiimad buu ku siiyay qof muhiim u ka dhigay markasta oo qofka aad muhiim ka dhigto oo runtii dareensiiso inuu muhiim yahay waa markasta qofku ku jeclaanayo dawa qodobkan waxa la yiraahdaa qodob aad u dhabar ah waxa la yiraahdaa arinta waxaad ku kala saari kartaa haddii nin weyn maanta ku imaado masab haysto mas'uuli waxa laga yaabaa inaad u istaagto si fiican aad u soo dhaweyso waxa laga yaabaa qof yaro miskiin hadduu suuqa kugu salaamana inaad si yaro qabo u salaanto arintaas maxay tilmaamaysaa arintaas waxay tilmaamaysaa qaabka dadka ula dhaqmayso way kala duwan yihiin qofna muhiim baad ka dhigto qofna kama dhigin laakiin taa looma baahna waxa la rabaa qof kasta oo aad la dhaqmayso inaad ka soo qaado inuu muhiim yahay oo sidee baad uga soo qaadaysaa waxaad uga soo qaadaysaa marka aad salaamayso waa in si adag aad u salaantaa oo runtii qalbi furan uu ku jiro oo waji furan uu ku jiro waxa kale oo iyadana tilmaamaya qofka inaad tixgelinayso waxa tilmaamaya qofkii dareenkiisa waa inaad tixgelisaa qofku marba wax buu dareemay mar uu faraxsan yahay markuu faraxsan yahay waa inaad la faraxdaa marna uu kacsan yahay oo runtii arimaha ku furan uu murgoonaya waa inaad la murgootaa mar dhib baa haysataa dhibta waa inaad kala qayb qaadataa inaad runtii la xalliso marba wuxuu kaaga baahay caawimo inaad caawiso markaana waa inaad caawisaa arimaha marka aad la timaado ee qofku uu dareemo qofkan inuu markasta uu la joogo oo wuxuu rabana uu la qabanayo oo dareenkiisa uu la qabo markaas qofku wuxuu dareemayaa agtiisa inaad muhiim ka tahay dawad saaleero aad u muhiim ah soo qaadanayna tusaalaha waxaan ku soo qaadanaynaa xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulullaahi muhammad oo ugu fiican cid tusaale lagu soo qotay isaga ugu muhiimsan isagaana ugu horeeya ayaa waxa dhacay isagoo khudbad ku jiro saxaabada u khudbadaynaya ayaa nin reer miyi soo galay ninkii reer miyiga markuu soo galay ayuu rasuulka ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxaan ahay nin reer miyiga oo diintiisa aan waxba ka garaneyn ee diinta wax iga sheeg khudbadu way socotaa saxaabadii waaweynaba fadhiya dadkii baa dhageysanaya rasuulku intuu ka soo degay mambarkii ayuu ninkii acraabiga reer miyiga u yeedhay markaasuu yiri kursi ii soo dhiga markaasuu rasuulka kursi loo dhigay sallallahu alayhi wasallam markaasuu ninkii reer miyiga wuxuu baray arrimihii diinta rasuulku ninkii markii uu baray arrimaha diinta markuu wax ka baray ayuu rasuulku haddana dib ugu soo noqday khudbadiisii oo bartii ka sii bilaabay arintan daawada maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam sidoo muhiimada gaar ah u siinayay saxaabadiisa ninka dhamay reer miyiga ah ee khudbadii dhamay oo socoto muslimiintu ay dhigsanayaan soo galay rasuulku mu aan waa reer miyiga ummadda la hadlaysaa ummadda la sii hadal bal gaar isaga ayaa muhiimad gaar u siiyay si gaar u tixgeliyay uu soo daadagay oo la hadlay isaga hawshiisa markuu dhameeyay ay khudbadiisa halkiisa ka sii watay dawada maxaa naga rabaa aniga laga rabaa adiga laga rabaa qof kasta oo aad la dhaqmayso ha noqdo qof daciifa qof miskiina qof weyn qof yar waa inaad qof kasta ku noqdaa muhiim waa inuu ku noqdaa waa inaad tixgelisaa qofka dareenkiisa waa inaad ka dhigtaa qof important qof very important waa inuu qofkaasi noqdaa oo runtii aad u muhiim ah oo aad tixgelisaa dawa qodobkaasi waxa weeyaan waa qodobkii labaad oo tilmaamaya qofka hadaad rabto inaad runtii soo jiidato haddii aad rabto inuu qofku ku jeclaado haddii aad rabto inaad noqoto qof akhlaaq wanaagsan ku dhaqma waa inaad qof kasta oo runtii aad la kulmayso waa inuu ku ahaado qof muhiim ah oo dadka qaarna aanad ihmaalin aanad ka soo qaadan inaan jirinba waxba aanay ahayn dadka qaarna aanay ku noqon dad aad u muhiim ah dadka dhan waa inay muhiim ku wada noqdaan qof kasta waa inaad tixgelisaa dareenkiisa waa inaad tixgelisaa wuxuu diiday waa inaad ka ilaalisaa waa inaad la socotaa dawa qodobka saddexaad waxa weeyaan ama sifada saddexaad ee tilmaamaysa qofka haddii aad sidaa ula dhaqanto inuu qofkaasi runtii qalbigiisa ku soo jeedinayo waxa weeyaan qofka waa inaad ogaataa dabiicadiisa waa inaad ogaataa qofkaas dabiicad gaar u leeyahay dabiicadaha dadku way kala duwan yihiin qof baa jecel runtii sheekada qof baa aamusan qof baa keligii markaas runtii ahoo socda qof baa jecel runtii kaftanka qof baan kaftanka jeclayn qof baa misaajiyo marba isbedelayo marba nooca
qofku waa dabeecadiisa fahamta haddaad qofka dabeecadiisa fahanto waxaad garan kartaa qaabkaad ula dhaqmayso iyo qaabkaad ula hadlayso laakiin haddaad ka soo qaado oo dadka hore inay dabeecadaadu leeyihiin oo qaabkaad adigu naftaadu u aragto dadka dhan had u wada aragto maxay imanaya in dadkaas ku dhacda qofkii aan kaftanka jecelayn markaad kaftan la kaftanto inaad sanacdaa qofkii runtii raba in loo sheekeeyo sheekooyinka ka helay markaad aamusnaata oon inuu isna runtii dib kaaga qorto marka maxaa dawada laga rabaa qofka dabeecadiisa wada fahamta dawada inta waxa ku dheeraanaya qofka usluubka uu la hadlaysana waa inaad garata oo qofku qof weyn ma ku yahay اسلوب gaar loola hadlaya qof dumar markuu yahay qof yar markuu yahay qof macallin markuu yahay qof kasta اسلوب gaar u baahan yahay marka اسلوبkii gaar qofka aad ula hadlayna waa inaad ogaataa haddaad dad isku wada nooc ula hadasho oo hadalkaaga qallafsan ee ka kan qofka saad qaabka ugu dhigto dad badan baa runtii ka cararaya oo ka tagaya dawada intaas oo kaliya ma wax la iraahdaa waa qodobada ugu muhiimsan qofka aad runtii rabto inaad soo dhaweyso waa inaad ogaataa sheekooyinku jecel waa maxay muxuu ka helaa qofka runtii waxa muhiim ah la yiraahdaa haddaad ogaato sheekooyinku jecel yahay oo marka aad uga sheekayso sheekooyinku jecel yahay waxa runtii culama u nafsi xaqiijiyeen qofkaasi inuu noqonayo qofka saaxiibka kugu muhiimsan ee ku jecel sababtoo waxa dadka bani aadanka ah dadka isku sheekada yihiin aad buu jecel yahay laakiin qofka haddaad ogaan sheekada uu jecel yahay iyo waxa uu ka helo oo wax kale uga sheekayso qof wuxuu dareemaya boring buu dareemaya caajis buu dareemaya sheekadaada runtii kamana guraayo marka inaad qofka wuxuu jecel yahay iyo sheekooyinku jecel yahay iyo waxa inaad runtii la socoto oo marka aad runtii arabto inaad u sheekayso arimahaasi ay ku jiraan waa waxalaha keena labada qof inay soo dhawaadaan bal wax badan baa maqashay hebel isku sheekaanuna wax kala ma aha waa dadkii sheekadii bas ugu dhacaysa marka waxa la yiraahdaa qofka hadda rabto inaad soo jiidato inaad runtii muxuu ahay akhlaaqdiina labadiina si fiican isu fahantaan waa inaad isku daydaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa inaad fahanto sheekooyinku jecel yahay wax xuseeyo kadibna qaabkaasi waa inaad ula dhaqantaa markasna niyada adigoo ka haya akhlaaqda wanaagsan qodobkaasi waxa weeye qodobkii saddexaad qodobka afraad ee daawada waxa weeyaan ee keensanaya qofkii hadda qaabka ula dhaqanto in qofka aad isku soo dhawaataan oo runtii aad muxuu ahay qalbi qulubta isku soo dhawaato wax weeyaan daawade qofka waana dhageysataa dhageysigu waxa la yiraahdaa waa qodobada ugu muhiimsan ee keensanaya dadku inay isku soo dhawaadaan dadku inay isjeclaadaan daawada haddii aad rabto akhlaaqdaadu inay wanaagsanaato waxa qodob aad u muhiim ah dadka inaad dhageysato kaliya oo ha sheekaynin dadka kale markay sheekaynayaan iyagana dhageyso dhageysiga marka aanu leenahay uma jeedno oo kaliya inaad maxaa dhagaha afurtee waxaanu u jeednaa qofku wuxuu ku leeyahay fahanto dad badan baa waxa jira qofka way dhageystaan laakiin marka ay dhageysanayaan meel kale ku sii jeedaan waxa ku sii jeedaan qofka inay u jawaabaan hadii nooca ah tahay daawade waa qodob aad u muhiim ah in runtii sifooyinka noocaas iska ilaalino dhageysiga waxa la yiraahdaa bal waa sifooyinka ugu muhiimsan baa la yiraahdaa qofka leaderka hogaamiyaha waxa la yiraahdaa sifooyinka ugu muhiimsan looga baahay waxa weeyaan ummadiisa inuu dhageysto macallinku waa inuu ardayga dhageystaa oo duruufihiisa la socdaa ninka dhakhtarkii waa inuu dhageystaa qofkan runtii uu daweynayo bal waxa la yiraahdaa dawada qaybaha ugu muhiimsan waxa kamid ah markuu qofkii runtii bukoonay ee cudurka qaba markuu arko dhakhtarkii uu dhageysanaya oo runtii qofkii uu laabta uu qalbigiisa ka soo saaro waxa la wixii ku jiray waxa la yiraahdaa qayb bay ka tahay daweynta qayb bay ka tahay laakiin dhakhtarku isagoo kuba dhageysanba waxa ku hayo isagoo ku eeginba haduu dawo iska ka qoro hatta dawadaasi haday fiican tahay wax laga wax badan inaan ku bogsin baa dhici karta marka dhageysiga wax la yiraahdaa waa qodob aad u muhiim ah dadka marka aad dhageysanayso waxa la weyn fahamtaa waxa runtii aad loo sheegay qiso aad u cajiib ah qisadan waxay ka dhacday dalka Mareykanka laba waalid hooyo aabo ayaa waxa u tageen jaamacadda Harvard University bay tageen waxay rabeen inay la kulmaan gudoomiyaha jaamacadda xafiiskiisa markii ay galeen ayaa sekretariyada gudoomiyaha waxay tiri gudoomiyuhu waa mashquul waqtigiina ma hayo kadib waxay ku yiraahdeen waanu sugaynaa way sugeen muddo marka ay sugeen ayaa sekretariyadii iyadoo aad ugu xun sugitaankay sugayaan oo jeclad inay iska tagaan ayaa waxa uu tagtay gudoomiyaha jaamacadda oo tagtay waxa ku tiri dadkan ma tagayaane fadlan waqti yar siiyo la kulan gudoomiyuhu wuxuu soo arkayay dadku la kulmayeen in dadka waaweyn ee muhiimka ah
laakiin sadad iska muxuu haayay aan sida u sii muhiim ahayn ma budanaynin balana aan la hays marka la soo qaado ala kulli hal markii dambe wuxuu aqbalay inuu la kulmo markuu uu la kulmay ayaa labadii waalid waxay ku yiraahdeen inan aanu dhalayba jaamacadan dhiganay Harvard University inankii wuu dhintay markuu intaanu dhiman ka hor waxaanu ogeyn jaamacadda inuu aad u jeclaa oo aad u xiisin jiray marka waxaanu jeclaanay in runtii muxuu haayay jaamacadda meel lagu xasuusto iyo wax lagu xasuusto loogu sameeyo inanka yagi gudoomiye jaamacaddu isagoo fahmay waxa uu jeedaan baa wuxuu yiri jaamacadda looma abuurin in muxuu haayay qof kasta oo dhinta looga sameeyo meel lagu xasuusto hadii kale gabigeedu wax isu bedelaysaa xusuus bay isu bedelaysaa waxa ku raasaa uma jeedno waxaan u jeednaa dhisma inaan u hibayno jaamacadda aanu siino oo dhismahana aanu ku qorno magaca inanka yagi wixii ma garan kartaan dhismaha Harvard University intuu idinku kici karo wuxuu yiri dhismahan imika aad arkaysan Harvard University waxa weeyaan wuxuu ku kacay jaamacadda markii la sameynayay in 1884 7 milyan iyo bad ayuu ku kacay marka saad uga bixi kartaan dhismahan aad arkaysan ba intaaba ku kacay isagoo markaa wuxuu rabay inuu niyad jabiyo raahdo dhisma maqsame waxba ma hibeyn kartaan oo lacagtu way badanta inta markuu ku yiri waalidkii ayaa islaantii waxay eegtay ninkeedii bay eegtay waxa ku tiri Stanford maadaama jaamacadani ay ku kacayso 7 milyan iyo bad maxaynu inankeena ugu sameyn weynay jaamacad u gaara oo magaciisa qaadataba oo magaciisa lagu qoro maxaynu ugu sameyn weynay ninkii wuxuu waa fikrad fiican labadayba way kaceen hal mar ninkii soo yaabano oo la yaaban dadkan muuqaalkoodu wuxuu u muuqdaa dad aan lacag haysan dad reer miyiga u muuqdaan dharka xidhan waa iska dhar baaliya marka soo nooca u arkay hadana waxay ka sheekeynayaan aad buu yaabanaa ninkii naagti way kaceen jaamacadii bay dhiseen madrasa magaceeda Stanford University waa jaamacadaha ugu waaweyn maanta Mareykanka jaamacada ugu quality-ga fiican leh Mareykanka arintaas maxay tilmaamaysaa waxa tilmaamaysaa ninka odayga jaamacadda gudoomiyaha ka ahi muu dhageysan labada qof waxay rabaan muu eegan bal maxay waxaan rabaan muu dareensaneen inay lacag haystaan kaliya wuxuu arkay muuqaalkoodii sida uu eegayeen maadaama muuqaalkoodu qiimeeyo arkay dad aan lacag haysan tixgelin muusiinin muu dhageysan laakiin maxaa ka soo baxay wuxuu filan waayay jaamacaddan waa kuwa aasaasay oo maanta caalamka aad looga yaqaan wana qiso dhab ah oo dhacday dawada qodobka waxaanu la jeednaa qofku waana dhageysataa ha ku qiimeyn qofku dharku xiran yahay muuqaalkiisa qofka miskiinka hada tirada wax dhageysanaya qofka weyn ee muhiimka ah ee masabka haysta miskiinka ma dhageysanayo looma baahna qof kasta waana dhageysataa si fiican u dhageysataa dawada qodobka shanaadi waxa weeye hadii aad rabto dadka inaad soo jiidato oo runtii qalbi akhlaaqdaadu wanaagsanaato oo dadka isku wada fiicnaataan maxaa lagaaga baahan yahay dhoola cadin baa lagaaga baahan markasta ay dadku kula kulmaan waa inaad dhoola cadaysaa dhoola cadayntu maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa qalbigaaga inuu furan yahay waa runtii waa message waa risaalad qofka u dirayso leedahay waan wada hadli karnaa waan isfahmi karnaa laakiin qalbigaaga markuu wajigaagu xidhan yahay dhoola cadayn aanay ka muuqan qofku xataa markuu saako arko uu ka boodaya marka dawada wax la yiraahdo dhoola cadayntu wax la yiraahdo waa albaabada ugu muhiimsan ee qulubta furaa la yiraahdo marka inaad dhoola cadayso oo markaas aad dhoola cadayso bal taasoo kaliya ma aha qalbigaaga message u diraysa marka dhoola cadayn sameeyso maskaxdaada message u diraysa inaad farxsan tahay kadibna farxadii baa qalbigaaga galaysa kadib runtii farxad baad yeelanaysaa marka inaad dhaw markaas dhoola cadayso waa qodob aad u muhiim ah dawada qodobkaasi waa kii shanaade qodobka lixaad wuxuu yahay aynu ku soo khatimayna hadii aad rabto dadka inaad si fiican u wada dhaqantaan akhlaaqdaada wanaagsanaato oo dadka isjeclaataan waxa dawada laga rabaa waa inaad qofka magaciisa ugu yeedha magaca qofka oo ugu yeedha macna gaar ah qofka uu sameynaysa qof kasta wuxuu ugu jecel yahay magaciisa in la sheego marka qofka magaciisa inaad ugu yeedho oo hebel oo tiraahdo waa qodob aad u muhiim ah bal waxa la yiraahdaa maanta hadii qof imka inta aad la kulanto oo in yar is aragtaan oo muddo ka bacdi aad la kulanto
oo magaciisa aad sheegto qofkaasi weligaa ku ilaahi maayo sababtoo wuxuu isweydiinayaa sideebo qofkan u xasuustay magacaaga marka muxuu dareemayaa inuu agtaada muhiim ka yahay ayuu dareemayaa markaas qofka magaciisa aad ilowdo markaas oo sheegi weydo waa markaas qofku dareemayo agtiisa inaad waxba ka ahayn dawada marka maxaa muhiim ah waxa muhiim qofka magaciisa waa inaad sheegtaa inta badan waxa inagu dhacday inaga qofka magaciisa lama sheego naanays baa loo sameeyaa naanays la sameynayaana inta badan maxay isticmaalaa qofka waxaan intiisan uga dhignaa naanays taasi dadka loogu yeedha arintaas khatar weyn bay leedahay bal qofku markuu yar yahay khatar weyn ba ku leedahay oo qofku markuu yar yahay isagoo isgaranayn inta uu leeyahay iyo mushkilada uu qabo marka naanays looga dhigo markiiba uu aaminaya markiiba wuxuu aaminayaa inta inuu leeyahay kadibna wuxuu arkayaa mujtamacu sida u nacab yihiin inta uu leeyahay kadibna cuqdad bay ku abuuraysaa kadibna mushkilad weyn ku keenaysaa ardayga marka dawada waxa muhiim ah inaad qofka magaciisa aad ugu yeedho oo runtii isku dayda markaas inaad xifdisanaado qofka marka lagu barayana inaad markaba aad awood saarto magaca inaad xifdido oo inta magaca lagu sheegayo magaca aad xifdido magacaada ugu yeedho dawada intaas ku soo koobaynaa aad bad ma santii wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh